الفضيلة الشيخ نورية فليتفضل مشكورا. آد بأمها سنية شيخ علي وقبل لقى إنه ثمانية إن شاء الله تعالى خدنا سيدا ويدين شيئا هلكا وحين وقفي سعندونا قبيقى وقب حيا لقد إنه هو يتقيتي وعنه هويا لاي هويا لاي هويا لاي هويا هويا لاي هويا لاي هويا لاي هويا دمبر أفريس لغا سوليسو داوى لغو شيغي إيو داهر ويا خمريدو درسنا ويا دائما سيدي هبلها ظهر كيبان نوغي إيو دنبي بانكا وعدي درسنا ويا دائما سيدي هبلها ظهر كيبان نوغي إيو دد إسلامان نهي درسنا ويا دمر كودن باندي قوهي مهرنا واندي إلي إيو دنبي بانكا وعدي درسنا ويا دمر كودن باندي قوهي مهرنا واندي إلي إيو دنبي بانكا وعدي درسنا ويا دنيا دا أقون تان دلدلن دعرنا وانقوشي دين تنا وكيل بان وهي درسنا ويا داير كايارين صود المري وان كدغيا دنبغي غالين في النهار دلعد ويان دير دنغلير بان هيا ان كو دبر غوين دريله نينكي مودي بي نار تدلقسين دبغل ديوتي اها دلخوي سراي ان شاء الله تعالى ان بدن با waxaad ku maqli doontaan saxda gabayga dhexdeeda aad ku maqli doontaan dulquway sara wuxuu ahaa ninkii akhlaaqda xumaa intuu nabi maxamed hor istaagay yiri caadil masiih ama nabi maxamed oo ilaahay ka baq ama nabi maxamed oo acdil ninkii riwaayadaha noocaas ku hadlay ayuu ahaa ninkii wuxuu ahaa calaamada nimankan hadda wahaabiyada la yiraahdo ee joogay ay leeyihiin lahaa uu rasuulku xadiidka ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ninkii madaxa xiirnaa garka dheer la baxay muxuu ahaayay marada kor soo xaydan jiray sida kuwa hadda jooga ee wahaabiyadihi akhlaaq xumada ay ku dhaqmaan mid waliba midka kale xurmo iyo ixtiraam toona ayna lahayn ixtiraam iyo xurmo toona aan lahayn ee isagu inuu khalqiga wax u sheegaan sida hadda u rabaan ninkii u akhlaaqda xumaa ayuu dulquwaysara ahaa ikhtilaafu diin ninkii bilaabay ee nabi maxamed oo taagan intuu ka hor yimid yiri acdil يا رسول الله أخي محمد عادل لما سمع نكى كهلا أي أخلاق بحما إن من كان وهابية هذا الجوجي علامة سائليهن أيود الخويسراها وحانو قدان لا يا هاي هدان إذن ترنسي يؤدق الذي حجاز له يقين سببت له دور شيء سعود له دور توا دانها قاولا درجة الرسول كي حجاز وضيع ذي علمدي كل كيد الدلين حرم كالله دور تيدغنها بوا كيدهين دين تنو قبائل كل كيلو يقين حجاز عليه الصلاة والسلام وقت النبي انت كدم بيسي انت كوريس الحجاز كل كيلو يقيني وقت لو ونين كان هذا دلك السعودي هاي سهل اللي يدهدو أوويس محمد بن سعود وقت يسي أيا انت اللي قلت دولي ونين قال هايو هان فريق الأورنجري لو صاد دري أو إنجليز أو سوبر باور كأدون كها وقت جاء وصاد دري أيو وحجري سواق بدأت السبيل لو بربرينها إسلام كان كود دري يا كان جامعة فرا بدن بوجلي سوريا العراق ميرا بدن بوجامعة ذاك جلي وحور هذين هي هان فريقين بدنين ودين الإسلام كود بربريو وحور سعودة مركز دم وحور هلي من اللي هذا محمد عبد الوهاب لو مجعابه ونك وهابية ذا أبه هذا أيو هلي ninkaan markuu gacanta ku dhigay ayuu wuxuu yiri adigu waxaaba tahay rasuulkii baan arkay waxa tahay wali mujaddid diinta ninka cusboonaysiinaya adigu tahay wuu kaan markuu gacanta ku dhigay ayuu haan faray wuxuu la hadlay super powerka ingiriiska baarlamaanka ingiriiska wuxuu ninkaan diinta islaamka ku burburin lahaa waan helay ee hala ii soo diro maaliyadii aan dalka ku gubi lahaa maalintaas ahaan faray iyo naagtii loo jiray maariye gaasha ahayd iyo maxamed cabdi wahaab intay ka bedeleen islaamnimadii khamri ay waraabiyeen iyo super powerku intuu u soo diray lacag ayaa dalkii xijaaz lagu soo duulay ashraaftii iyo aalabeydkii rasuulka ee xijaaz joogayna waa la baabi'iyey meesha hadda daa'if la yiraahdo 700 oo mafaatiiri abaa maalin kurka kaga gooyeen magaalada hadda dhulka najbi la yiraahdo madaxda oo riyaad la yiraahdo marka kolkay laayeen dadkii ayaa dalkii la qabsaday waxa lagu magacaabay inta laga bedelay xijaaz sacuudi baa lagu magacaabay markaas waxa la yiraahdaa sacuud waxa laga dhigay boqortooyada dalka haysata ninkii maxamed cabdi wahaab ahana waxa la yiraahdaa sheekh adigu diintaad ka talinaysa
markaasuu wuxuu bedelay wax alla wixii islaamka diintiisa ahayd oo dhan intuu bedelay iyo kutubo aynan hadda magacyadooduba aysan kutubana ahayna buugaag soo saaray fatxul majiid iyo kitaabu tawxiid iyo kitaabu nijaasa waxa la yidhahda ayuu soo saaray ina cabdiwahaab sidaa darteed waxay ahayd xijaaz meel islaamka laga xukumo oo manbacul islaamka ma ay isugu yimaadaan bay xijaaz ahayd haddana waxay noqotay manbaca gaalada laga xukumo sida aad aragtaan oo amerikaan baa ku dekaynaya dagaaladii xijaaz loo yaqiin sababta loo doorshay ee sacuudi loo doortay waa danaha gaalaadee darajada rasuulkiiyo xijaaz odayadii diiday culimadii kolkay daldaleen xaramka loo doortay dugnahaaba waa kay dhaheen diinta noo qabaye mid difaacda boqortooyado gaalka darajaysa in laysoo horta mooye nikaax diinta laga waayay ittaqullah abbaaya naftaa ku jeclaatay weeye diin iyo meher iyo waxba toona kama dhexeeyaan ninka wahaabiga kolkuu gabadh jeclaado naftaa ku jeclaatay weeye abbaayo in laysoo hortaa mooye nikaax diinta laga waayay inuu daalimkii daabacaan daliil wahaynaaye in la raaca duulkaa rogmaday waa dameer xuma ee dar ilaah ninkii moodibay naarta dalaqsiinee dabagale dayuuskii ahaa hulquwey saraye duul ilaahay suuraynhayo duub xunbaa yimideed ilaahay carshigu fadhiya ilaahay xaggan uu jiraa ilaahay abuuray unbaaba alla ku mashquuliyey tafakaruu fii khalqi illaahi walaa tafakaruu fi illah bal khalqiga ilaahay ku cibro qaata oo fiirfiiriya la rabbiga yaa isu diray in xaggiisa loo kaco ilaahay xagguu fadhiya ilaahay waa aniga oo kale ilaahay gacmuu leeyahay saddex ilaah baa jirta ilaahay unbaa kolka horeba ilaahii abuuray baaba ka baxsan laha reer nahab duul ilaahay suuraynhayo duub xunbaa yimidee dad rasuulkii diidoo nahaab doortay baa yimidee dad aad oo dhan xaqay daahirsheen oo dunshaa yimidee kolkay qur-aanka akrinayaan caamada iyo waxmagarasadu iyo ciyaalku waxay odhanayaan iyo dumarku alla waa niman fiican say qur-aanka u akrinayaan siday kanu yihiin rasuulkaa noo sii sheegay oo yidhi waxaa imaan doona aakhiru zamanka qolyo markay qur-aanka akrinayaan qofka mu'minkii qur-aankiisa uu yasayo kolkay salaada tukanayaan salaadiisa uu yasayo oo moodaya diinta inay iyagu iska leeyihiin laakiin iyagu male xujay ku tahay marka waa kuwii uu rasuulku sii sheegay kuwa diin cusub ma aha dad rasuulkii diidoo nahaab doortay baa yimidee dadaad o dhan xaqay daahirsheen oo dunshaa yimidee dad salaadu sii didahayo daalima yimidee dad salaadu sii didahayo daalima yimidee dadaan soonka daynhaynino saaqibaa yimidee dad qur'aanka daldalahayo diidan baa yimidee dad qur'aanka daldalahayo diidan baa yimidee dadku odhan anaa diintala haatan soo degaye ducadiyo qunuudkaad ku garan ay dafirayaane wax alla wixii islaamka iyo diinta islaamka raadka u ahaayoo dhan bay tirtirayaan maxaa ka mid a عليه الصلاة والسلام قنوتك صلاة الصبح اللهم اهدنا صلاة الصبح الآخرية وحير هذين وقال لهم وحرام الآخرية ما بنانه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حديث أنس بن مالك ورنهي يقول النبي حديث معنيه سؤها إلى الدنيا وكفار وقموس النبي وكسجن قنوتك يجون وحي بكلين وقال لهم islaamku inay ducaystaan ilaahay baa ku aqbala markay ducaystaan lama ducaysan kara yidhaahdeen maxay u diidayaan inaysan diin ahayn ma aha ducadii waxay u diidayaan islaamku markuu intuu isu yimaado uu ducayso ilaahay baa aqbalaya ijaabaday khalqiga kala diridayaan aqbalkay khalqiga kaga diridayaan yuhuud nimanay soo dirsatay weeye oo si ay u kala tagaan oo islaamkuba uu kala cararo ayay maaragtay ka shaqaynayaan islaamnimadaba meel la raad kagama leh ducadiiyo qunuudkaad ku garan ay dafirayaane bisinkaa allay diidiba diirka ka caddayne dugaagii ka yimid reer sacuud dunida aafeeye darilaah ninkii moodibay naarta dalaqsiine dabagale dayuuskii ahaa dulquwey saraye dad islaamuhu gaal ka dhigo darajayaa mooday dadkoo sooman yaa ciidayo soorka dalaqsiiyey dugsi kii imaam looga dhigo dabaqyayo wiibisheeg bil fiirsan mahayaan bisha ramadaan bil fiirsan mahayaan kolkay dhammaatana fiirsan mahayaan kolkay bilana fiirsan mahayaane raadiyaha sacuudiga ka shanqaraya ama ardunajdi ka shanqaraya unbay dhegaysanayaanoo bishii oon dhalanin bay soomi bishoon dhammaaninna waa ciid bay ka odhanayaan wax magarasaduna ilaan bishan waxaa layna yidhi suumuu biru'ya waftiruu biru'ya fain qumna calaykum fakmiluu ciddata shacbaana 30
bisha ramadaan bisha ka horraysa shacbaan inta la fiirsado waktigay bishu dhalanaysa in lala socdaa islaamka yaa rasuulku u jiday iyaguna raadiyayba kala soconayaan bishii oon dhalanin unbay soomi bishii oon dhalaninna way ciidi islaamkii wax magarasaduna wadaadadii baa ciiday unbaad maqli islaamnimadaba marka waa un ummad inay dabagooyaan loo soo diray midda kale ee labaad mid faqiir ahaaba yuhuuddu intay soo dirta waxaa la odhan hayaa orda meeshaa dugsi ka qabo isagii aabihiiba ay caydhahaayeen markaasaa maalinta dambe inta dugsi meel looga wado subaxa dambaa waxaad arkay isagoo 5 looji furtay sida hadda umal iyo raggii lamidka ahaaba ay kamid tahay kuwii hadda Nairobi nala joogay iyagoo shalay wada baahnaaba maanta waxaad moodaa nin waliba uu 50 daarood leeyahay dad islaamuhu gaal ka dhigo daraja yaa mooday dadkoo sooman yaa ciidayo soorka dalaqsiiyey dugsikii imaam looga dhigo dabaqyayo wiibishay dugsikii imaam looga dhigo dabaqyayo wiibishay dumarku darbaalada u xidhay duhur cad yaa nuugay isagoo xaqii daba maryayn yaa ilmada daasay dibadeed salaad yaa galo dariska yaa ariixay ku been abuuran mayno oo sugaanta waa ka mamnuuc wax aan dhicin in lagu sheegaa waxaa dhacday 94 in magaalada Nairobi masaajidka ay ku magacaabaan ama masaajidna uma aqaane sigisa tireed inuu midig kaga khudbeeyay wahaabiyada kamid ahaa waxaa bannaan nin weyn oo garku halkaa joogay gabadh islaameed inay nuugto kolkii naaskeeda nuugo hooyay u noqon waxa la wixii iyadoo ay dhashana walaaladeed bay noqon muxrim bay u noqonayaan waysada ka jabin ay mahayaan marka in dadka waaweyn ay gabdho islaameed nuugaan baa u bannaan inuu mid ku khudbeeyo baa waxay cid waliba ay ogtahay haddii ayna wada ogeynna ay ummad badan ay dhagaysanaysaa aniguna aan dhagahay ku maqlay marka nin weyn oo garku halkaa joogay gabadh ajnabi ah markay intay marada isaga fayda ay naaskeeda u soo bixiso fuul bay ahde maxaa dhiman marka waxa weeye salaad bay galayaan salaada markay galayaan intuu lugba meelgeeyo ixtiraam iyo male xaq dhawride iyo kugu istaagayaan ninka wahaabi iyo lugtu kaaga istaagayaan aad u carartid mooyna saw ixtiraamba male dumarkoo darbaalada u xidhay duhur cad yaa nuugay isagoo xaqii daba maryayn yaa ilmada daashay saasu ilmadu daadinhayaa madaxu luli dumarkoo darbaalada u xidhay duhur cad yaa nuugay isagoo xaqii daba maryayn yaa ilmada daashay dibadee salaad yaa galo dariska yaa riixay dar ilaah ninkii moodibay naarta dalaqsiine dabagale dayuuskii ahaa dulhuwey saraye abidkood waxay doonayeen inay dalxiisaane dugsi lagu shirqoolay dhiseen dumarka qaarkoode nin keliya midii diidaybay daahu geliyeen abidkoodii allahood baad iyagu diiniin u socon waa loo yahay dumarka un baa shaqadooduba ay tahay gabdho mu'miniin oo tiro badan way jiraan oo muslimiin kuwa aan u dan leenahay waa kuwa ay calalka gafuurka intay ka lalmiyeen inta qullaha abaya nafta ku jeclaato xaaladeedu ay tahay mid naaskeeda la nuugiyo mid la yiraahdo waa lagu kala goyn salaadu ka asixi mayso iyo adu xaaraanta gabdhahan ay ku wad wataan oo diinta islaamka ay daba mariyeen kuwa aan sheegaynay gabdho mu'miniin oo tiro badan way jiraan meel walba way joogaan dugsi lagu shirqoolay dhiseen dumarka qaarkood nin keliya midii diidaybay daahu geliyeen dibadee dardaal baa waxbari macasi dayday hadbatii u doortuu dugsiga dib ugu reebaaye mar hadduu dantiisii ka helo baratay dowgiye mar hadduu dantiisii ka helo baratay dowgiye in la duuga mooyeen ragbay dacalka saartaaye dar ilaah ninkii moodibay naarta dalaqsiine dabagale dayuuskii ahaa dulhuwey saraye waxay diintu noo sheegtaybay wada diciibsheene wuxuu degay ilaahay carshiga waa dadkii yidhi deganow rasuulkii allay ceebu daydaye deganow rasuulkii alley ceebu daydaye rasuulku anigoo kalu ahay muxuu dhaamaarey warqad baa kitaab baa loo soo dhiibay kitaabkiina wuu keenay maca salaama cidaaman baaliyaatin buu nebi maxamed noqday sida hadda boostaalaha kuwa warqadaha qaybiyo oo kale boostaalayba ku tilmaamaan nebi maxamed isagu inuusan hadda waxba ahayn bay isaa ka dhigayaan waxay diintu noo sheegtaybay wada diciibsheene wuxuu waa daciif xadiiskayna garahayn waa daciif xadiiskayna arag waa daciif diinta islaamka oo dhan waa daciif unbaad hadalkooda dhan waa daciif waxa la wixii aan iyaga mabda'ooda raacsanayn oo dhan ilan waa nin la soo dirayo dastuur loo soo qoray buu ku socdaayo sidaa iyo sidaa yeel baa layidhi hadduuna sidii yeelinna mushaharka waa laga goynaya marka si uu mushaharkiisa u ilaashado wuxuuna aqoonin xadiidkuuna aqoonin aayadduusan aqoonin waa mansuuqa waa daciif waa yani waa difaac mushaharkiisa u ilaashanaya waxay diintu noo sheegtaybay wada diciibsheene wuxuu degay ilaahay carshiga
وادتكي يري دقنو رسولك الله عيبو ديدي دقنو رسولك الله عيبو ديدي وحي تري دقيدي دشيو علماء دينكي نكي دوني يورينها بانك دقيا دوق إسلام ويان فرعون وادركي يري علماء دي هوري اللينيان علماء دي هوري وحللو حد مغليسا wadaadadii hore oo waayahay hadii wadaadadii hore laga tago nabigu waa nabi maxamed waa nabigii hore diintu waa diintii hore wadaadadu waa wadaadadii hore bal rasuulka hadda yimid ee cusub ee lagu dayanayo anagu garan mayna ninkii arkay ha noo soo sheego iyo wadaadada hadda cusub ee meesha ka yimaadeen wadaadaduna waa kuwii hore diintuna waa diintii hore nabi maxamedna waa nabigii hore bal wixii ka dambeeyay ninkii haya ay la fiican tahay isagan ka sugaynaa midda kale labaad buuqa xun ee magaciisa la yiraahdo kayfa nafhamu tawxiid baa waxay ku soo qoreen أبي جهل وأبي لهب كانوا يؤمنون بالله أبي جهل يا أبي لهب مؤمنين بأهايم باكو قرن وحي كتوحيد بدنا يكون ما أنت جوجي لا إله إلا الله محمد رسول الله له إيه صالحين تزيارته أي أبي جهل يا أبي لهب كم مؤمن صنايم بابوقة كيف نفهم التوحيد اللي قالوا تعالى محمد عبد الوهاب ليه مرك أبي جهل النبي محوكو شيء فرعون كي هراء أمدي مصر ما هي فرعون هذه الأمة أمد النبي محمد فرعون كذا النبي محمد أبي جهل بقتل مامي مرك نيكو النبي محمد أبي جهل قتل مامي وفرعون قتل مامي هو يريد كمان أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إليه كم من سيئه بل هذا إسلام لماذا أي وطن وحانوا ملاينا يا خلقي أنك عقل له إنه مكفر سنكرا إلى طيب نكي دوني يورينها بانك دقا يا دوب إسلام ويا فرعون وادتكي يري أبي جهل الله دور تيبي درجة مودين أبي جهل الله دور تيبي درجة مودين دنبي قالين رينها دلعد وياني وقدقين إن كان دون يرهبين كما الضنبيسي أبي جهل الله دور تيبي درجة موذين إنكي دون يورهنها بانك دقيا دوق إسلام ويان فرعون وادتكي يري أبي جهل الله دور تيبي درجة مودين دريله نكي مودي بي ناتا دلغسين دبقل ديوسكي أهو دلخوي إسرائي نجدي دقل ديو الظهران دول كاللغا كيني دنيا باصدي حقي دلعدو وياني إني إمن دجالين يريري والله ضابعي دينتنا دقيسا إن من يرير وصابح الدونة وعقلي يرير inay soo bixi doonaan aakhiru zamanka oo iyagu maartay xaqiiban ku taaganahay lahow quraanka aan arabka ka qaadayni oo quraanka uu waligoodii Allah kolkaada wada hadashaan quraanka xadiidka uu ku oran haya wax alla waxay diinta islaamka ay salo ay ku leeyihiin ay tanjirin oo nabigu ku tilmaamay yamraquna min ad-diin kama yamraqu saamu min ar-ramiya qaansada sidoo leeb uga dhaxbaxo ayay diinta islaamka uga dhaxbaxayaan nimanka ayagiin marka nimanka yaryar inay soo baxayaan nabiga hore noogu sii sheegay ee quraanka iyo xadiidka uu ku haynaya mana baaba'ayaan oo waligood way joogayaan oo nabigu waa kiyiri kullama quda'a qarnun nasha qarnun aakhar hatta yakuna aakhiruhu ma'a masiih ad-dajjal kulkii qaybiya kamida la laayaba qaybiya kamida ayaa dhalanaysa إلا أي مسيح الدجال دجال عور إلا أي حرق النقدان ولقود يا الله خوارج نمك اللي هذا استفادة مدح حيرا يجر كدير برد الاستواء أيضا يا نمك له الصومالي أنا وهابية اللغية قانا معارف فإنتي سبدا ولقود ويجوغ يا نمك الترميان نجدي دجال لدي يظهران دول كلغا كيني الدنيا باصدي حقي جرعد وياني إني إمن دجالين يريري والله ضاضعي إنا يا أخي سودك هيان دين تبادك يا دمركيو نكي داير بي دو كردياني وظالم روحي بدعدا دلقي الأهداي مدووبكي دبقلا دائما بتكيسي من دخل جوفه بدعة نجد فلا يرجى فلاحه قلبا من أي بدعة نجد قلبه سقشي إيمان الآن بكل من أياه خاصمة مرنا بنين بدعة والنبي محمد عاين حرام بكتها خاصمة ونكسن وكل انتو خاصمة الآن بكل من أياه ده إلهي النبي محمد دفاعي وحي النبي محمد عاين أما أوليدي سعاينا ربي خاصمة دنبو سيدين أياه مدوه بوكي دبقرا دائما بكي سيدر الله ننكي مودي بي نار تدلق سيني دبقل ديوسكي أهو ملخوي سراي dumarkiyo caruurtaan rabaa inaan difaacay daanfoolka diintii bashaan
maylin darayaaye kalbigaadina hinhayaan dabarku seetayne kalbigaadina hinhayaan dabarku seetayne daanyeerka soo duubtay baan dacar waraabsiine daqsigaa nijaasaysan baan dunida dhaabsiine daqsigaa nijaasaysan baan dunida dhaabsiine waa daqsigaa nijaasaysan baan dunida dhaabsiine dugaaga xurmada aan lahayn laga digtoonaaye waa duul islaamkii dhex dhigay dabya baaruude waa duul islaamkii dhex dhigay dabya baaruude makri diinta lagu hoos wado daahan baa jira ee dawladnima inay goobayaan daahir loo aragiye dawladnimay raadinayaane diin uma socdaan dalka in ciyaalka iyo dumarka iyo hoosta inta laga qabsado dadka waaweyn iyo culimada iyo waxgaradkana la laayo deedna dawladnimo sidaa ay ku qabsadaan dawladnimaa la goobayaa meesha diin looma socdo aayaddan laysla lulayaa dar ilaahay mehe dawladnimaa lagu raadinayaa dawladnima inay goobayaan daahir loo aragye uga digay ninkaan duunya rabin kama dambayseeye darilaah ninkii moodibay naarta dalaqsiine dabagale dayoodkii ahaa dulkuweysaraaye yaabla weeyaan madfaca waalay dunidiiye waaqlaha ninkii taagyarbaa lagu warjaafaaye wareegaysan maaye waxaa waaga ka caddaaday wahaabigii inay raadiyaan weedhagaaladae wanaagsane qur-aankii ilaah la iska weyneeye wacanow xadiidkii nabiga weerar lagu qaadiye waysadii alliya tusbixi waadi lagu tuuriye waysadii alliya tusbixi waadi lagu tuuriye waalidka xaqiisii ilmaha wada jir loo siiye waxyiguna qariib buu ku yimid waagu soo degaye waxyiguna qariib buu ku yimid waagu soo degaye waa dambana qariib buu ku noqon weli xadiidkiiye waxa maanta joogaa caddayn weedhi nabigiiye nin wahaabi raacow haddaan weeye ku idhaahdo un ka wargura soo winaan waa la nahaymo waxyiguna qariib buu ku yimid waagu soo degaye waa dambana qariib buu ku noqon weli xadiidkiiye waxa maanta joogaa caddayn weedhi nabigiiye nin wahaabi raacow haddaan weeye ku idhaahdo un ka warguro soo winaan waa la nahaymo waxaa weeye bada-a diinu qariiban wasayacuudu qariiban fatuuba lilghurabaa nabi moxamed oo keligiisaba diinta yaa bilaabay oo waday maalinba mid ha ku soo bira asxaabtii maalinba mid markii dambana isaga oo ay islaamku meel weyn gaadhsiisan yahay ayuu nabiga ilaahay la oofsaday diintuna intii ka dambaysay sidii unbay u taagnayd marka nabigu wuxuu inoo sheegay diintu inay qariib ku bilaabatay haddana ay qariib